wasaaradda arrimaha gudaha dowladda Jubbaland ayaa kismaayo ku qabatay kulan muhiim ah oo lagu xoojinayo isku duubidda wasaaradaha dowladda Jubbaland. Shirkan oo qabsoomay 3 bilood mar ayaa diiradda lagu saarayay guulihii la gaaray caqabadihii jiray qorshayaasha horumarineed ee la higsanayo. Kulankan ayaa waxaa goobjoog ah agaasimaha waaxda maamulka maaliyadda ee wasaaradda arrimaha gudaha dowladda Jubbaland, mas'uuliyiin ka kala socday wasaaradaha dowladda Jubbaland iyo maamulka qaar ka mid ah degmooyinka. أحمد محمد عبد الله agaasimaha waaxda maamulka maaliyadda ee wasaaradda arrimaha gudaha dowladda Jubbaland oo madasha ka hadlaya xusay muhiimadda ay leedahay wada shaqaynta hay'adaha dowladda si loo dardargeliyo adeegyada bulshada. بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والسلام يا دمان كسوق قبلياشة وساردها كلا دوين Jubbaland كارهان وساردها كشقي أديك داتجنت أما أديك بحنتا شركة أين ما تسوون من وشر ربع الله أما صدق بلاد الله ويسوق عن قابس وساردة أرمها جودها صدق بلاد بمر شركة واحد لقول في جوري دونا دمان جوليه اللي جاري أما اللي جاري سنة كي تجي لابد مشان لا تنكا سيدو كلا عقبته لا كل مي waxaa kale oo looga hadli doonaa shirkan hadii alla idmo qorshayaasha u degan maartay wasaaradaha ay qusayso adeeg daadajinta iyo degmooyinka wasaaradda arrimaha gudaha waxay ka shaqeysay ama ay daadajisay sanadkii tagay 2025 laba iskuul oo kala ah Ganaane iyo Midnimo sidoo kale waxaanu ku guuleysanay inaanu maartay aan dhisno ama iyadoo anagoo u marayna degmada biyo dhici qiimo ay agtiisa سأسلم إذا واحد ربع مارتي وسارد والبا يو مارتي دقمدو إنه يسوق بس قوله اللي جاري عقبته يقرشياش سنة كان سجود واحد يراضي تاجرات عالمي جاهد صومالي أردن أم أفريقيا أردن وحنا الله صعد هذا إنه نقطة هوشو من طوله إلى دقمة يساو صعد من استيد إلى يطوله مارتي إن أديك لو ده جارسيو أو ده دجين لسمايا قرشياش waxay noqonaysaa in maanta lagu la fakuro maadaama inaga ay nahay wasaaradihii u ahaa madaxda dowladda Jubbaland ay noo xil saartay inaynu maaragtay iska wareysano sidii ay u soo rogeli lahayd iyo caqabadahan taagan wixii loo gudbila